marnabaha ka quusan wax aad si dhab ah u rabto way adag tahay in la sugo laakiin waxa ka sii daran oo ka sii adag inaad ka shalaydo goortii aad aqbasho qof waxaad aqbashay wixii ay horay u soo mareen oo dhan sidaa darteed dib ha u soo go'an hana u adeegsan goortii aad qof necbaysato ama aad nacdo wax kasta oo ay sameeyaan waxay noqonayaan kuwa kaa xanaajiya haddaba ha gelin niyadaada wax nacayba argoosiga ugu wanaagsan waa inaad horay u socoto cafiso oo iska ilowdo kuna dadaasho inaad guulaysato marnabaha siin qof qanaacada ah inay ku daawadaan adigoo dhibaatoonaya 80% dadku way iska aamusaan xitaa kolkii ama markii ay rabaan inay wax yiraahdaan si ay uga fogaadaan muran qof ay danaynayaan marnaba si aad ah ugu xirnaan qof haddii aysan iyagu sidaa oo kale dareemayn sababtoo ah jacayl hal dhinaca maskax ahaan ayuu ku baabi'in karaa dadka qaarkii ma rabaan inay runta maqlaan sababtoo ah ma doonayaan in dhalanteedkooda la burburiyo marnaba been ma noqoto run qaladna ma noqdo sax xumaanna ma noqoto wanaag xitaa haddii ay aqbalaan ama rumaystaan dadka oo idil yaysan ku gelin kalsooni saa'ida ama yeedadiilo badan goortii qof kugu yiraahdo waan ku jeclahay su'aasha saxda ah waxaa weeye ilaa iyo goorma sababtoo ah sida xilliyada sanadka isu bedbedelaan ayay dadkuna isku beddelaan goortii iyo xilligii xumaan lagu sameeyo dadka daciifka ah way argoostaan dadka xoogganna way cafiyaan dadka caqliga badanna way hilmaamaan qofna ma oga halganka aad ku jirto qofna ma oga murugadaada qofna ma oga xanuunkaada laakiin waxay dhammaan ogaadaan oo sii wadwadaan haddaad samayso hal qalad dadka qalbiga fiican wax badan bay dadka caawiyaan wax badan bay bixiyaan si dhab ahay wax u jeclaadaan haddana waxaa soo gaara waxyeelada iyo dhibaatooyinka iyo mushkilaadka ugu badan waxayna awoodaan inay ku qariyaan kun dareen oo murugo ah hal dhoolla caddayn oo farxad iyo furfurnaansho ah mararka qaar dad masaafooyin aad u dheer kaa fog ama kumanaan mayl ayaa ku siin kara farxad aadan ka heli karin kuwa dhinacaaga jooga oo aad kuugu dhow ha u noqon la lahaade ama addoon shaqadaada ha ku lumin waqtigaaga iyo fursadaada wax aadan kuugu jirin ha ku dayicin daryeelka naftaada madadaalo micno la'aan ah ha u baabi'in naftaada shaqsi ama shaqo aan horumar ku gaarsiinayn kama dhigi kartid kumana qasbi kartid qof inuu ku jeclaado waxa aad samayn karto waa inaad noqoto qof la jeclaado wixii soo harayna iyaga ayay u taallaa ee u daa calaamadaha qaangaarnimada dhabta ah waa markii qofku dhibaateeyo kadibna aad isku daydo in aad xaaladooda fahanto iyo waxa ay sidan u samaynayaan intii aad isku dayi lahayd inaad ka aargoosato si taxaddar iyo feejignaan leh u dhagayso sida qof uu u hadlo markuu wax kaaga sheegayo qof kale tani waa sida ay kaaga warramayaan markay dad kale kaala hadlayaan maalintu inay kuu noqoto mid khayr oo danahaagu kuu wada qabsoomaan waxay ku xidhan tahay subaxii markaad hurdada ka soo kacdo wixii aad ku bilowdo halkii aad ku bilaabi lahayd inaad Facebook eegto ama email ka jawaabtid ama war dhagaysato ku bilow allihii ku siiyey fursadda labaad nolosha inaad u sujuuddo xusto ku shukrido aadna ducaysatid mar kasta oo aadan fahmin dhibta nolosha ku haysata indhaha isku qabo neefso gacmaha kor u taag kadibna dheh ilaahow waan ogahay in wax kasta qorshahaaga ku socdaan wax kastana sabab ku dhacaan ilaahow iga caawi sidii aan uga gudbi lahaa marxaladdan ha murugoon haddii dad aad abaal badan u gashay kugu jisaaraan ama cadow kugu noqdaan xusuuso alle oo dadkan abuuray nimco badan siiyey ayay in badan ku caasiyeen aysan adeecin awaamirtiisa maxaad filaysaa adigoo maskiin daciif ah waa caafimaadka waxa ah hantida dhabta ah ee ma aha xoogaa dahaba ama lacagtu waxay kuu iibin kartaa sariir qaali ah laakiin kuma iibin karto hurdo iyo si nabad ah inaad ugu seexato ku dadaal daryeelka naftaada haddii adigoo ah nin xaas leh aad is aragto inay aad kuu soo jiitaan gabdhaha iskoolka dhigta xaaskaaga u iibi dharka iskoolka biyuhu waa waxa ugu jilicsan haddana waxay dilaaciyaan dhulka
waxay dhaqaajiyaan dhagaxaan, waxay dejin karaan maraakiib. Tani waxay si cad kuu tusaysaa mabda'a ah in dabacsanaan iyo deganaan aad kaga guulaysan karto wax aad u adag. sabarku ma aha ilaa waqtiga aad sugi karto, balse waa sida wanaagsan ee aad u dhaqmi karto inta aad sugayso. marnaba ha is odhan way kaa daaheen wixii aad sugaysay ama weligaa ma helaysid. wax wanaagsan ayaa u muuqan kara xumaan haddii dhanka mugdiga ah ka eegto. wax xun ayaa u muuqan kara wax wanaagsan haddii aad ka eegto dhanka iftiinka ah. sida dadku wax u arko ama u cabiro ayaa kala duwan. ha ka caajisin, hana isdhiibin. halganka aad maanta ku jirto wuxuu kuu diyaarinayaa awoodda aad berri u baahan tahay. dhib kasta oo ku soo martay waxay fursad u ahayd koritaankaaga qofnimo. marnaba ha nicin dad kaa masayrsan ama ku ximaya. xushmee masayrkooda, waa dad u arka inaad ka wanaagsan tahay. qofna intuu qabrigaaga soo istaago ma odhanayo wuxuu wadan jiray moobilo qaali ah, waxay lahayd sawirro qurux badan, wuxuu lahaa guri weyn, wuxuu kaxaysan jiray gaari sare. laakiin inta god yar lagu geliyo ayaa lagaa soo dhaqaaqayaa. keliya waxa ku raacaya waa camalkaagii adduun. dadka qaarkii waxa ay la yaabaan ama isweydiiyaan sababta dhibaatada ugu soo noqnoqonayso. ma oga in imtixaanka iyo casharada la soo celceliyo ilaa qofku wax barto ama wax ku qaato. qof miskiin ah ama baahan haddii uu wax ku weydiisto ha ka bakhaylin. sii wax kasta oo aad awooddo. ogow sabab baad ku kulanteen, adiga ayaana lagugu eegayaa in wixii alla ku siiyey aad wax ka bixiso iyo in lagaa soo celiyo ama barakada lagaa qaado. yeelo saaxiib iyo asxaab, laakiin ha ilmaamin dadkii adduunka ku keenay oo ku soo saaray. xasuusnow inay ku sugayso inaad dad koriso, tababarato, heerna gaarsiiso. xiriiri qaraabada, xaq dhowr deriska oo xushmee dadka.